in la gubo oo gabar Soomaaliyeed ah ee haddana la dhaho ninkii waa baxsaday annaga isma weydiino amniga gobolka yaa haayo kan wax gubayno yuu yahay ma ilma adeera ma isku aabba ma isku ehla annaga marna kuma kalsoonaanayno amniga gobolka dadka jooga inay noo keenaan dhacdooyinkii dhacay ayaga ay noo soo qabtaan waxaan ka sugaynaa prime ministerka waa inuu u saaraa guddi kuma kalsoonni sababtoo ah waxaan aad iyo aad ugu xunnahay cunugtu dobajir ah waa wiil gabar xataa ma aha aan nin 60 jir kufsaday waxa ka soo wareegtay 4 bilood waa la raadinayaa maxkamadda loo gudbay ma fiicno war haddii adiga ilaahay xilka uu ku dhiibay amniga gobolka uu ku dhiibay ina ugu hiilisid in adeerkaaga inuu wax kufsado wax dilo haddana aqrisid cid ka yeelaysa male mudana gudoomiye waa inaad nimanka mas'uuliyiinta ah ee booliska ay gobolka jooga waa in halkan la hor keenaa waa in ayaga loo inqaaba waa ayaga in la soo hor istaajiyaa xilbaanada hortooda ma aha kan wax geystay waxa ka dambi weyn kan abniga hay sababtoo ma suurta galayso dhiigii hore noo yaala annaga cunugii 7 jirka ahaa ee la kufsaday waalidiintooda lagama xaajoonin way haday ay awood xoog badan ilaahay uu leeyahay maxay qabaa'ilada waaweyn waxna ugu kufsan waayeen waxna ay ugu dili waayeen sababtoo ah dhiiga loo aari lahaa laakiin dad aanan hubaysnayn oo masaakiin ah ee aan weligooda wax dilin inaad shaati dawladeed ugu faanteed inaad awood dawladeed ugu faanteed mudana madaxweyne arrinkan ilaahay adoo ka baqay madaxweyne oo arrintan dambigeeda adaa lagu saaran arrintan soo farageli kumana kalsoonaan doono haddii aysan keenin amniga gobolka dadka haysto dadkii dhacdooyinkaas ka sameeyay ayaga u sabab ah ayagaana la hor keenaa maxkamadda intaas soo jeedin lahaa